dhammaan asxaabtana daawanaysa ee page-kan ku leenahay Facebook-ka iyo YouTube-ka wanaga daawanaysa dhammaantiinba. Halka waxaan idinku soo gudbinaynaa mid ka mid ah casharadiina conversation-ka ah ee aan ugu talagalnay dadka luqadda base-ka ama xagga hoose ka soo wada xagga hoose iska soo dhisaya luqadda base-keeda. Casharkan oo ah cashar conversation oo gaaban ayaa waxaan ugu talagalnay inaan idiin soo gudbino daawasho wacan oo wanaagsan. Casharkeenu waa cashar conversation ah ama wada sheekaysi ah. Waxaan ka bilaabi doonaa halkan. Number 1, gerade. Gerade waxa weeye imika. Ich bin gerade markaad leedahay macnaha gerade waa imika waxay la macno tahay jetzt. Okay, Nummer 2. Number 2 waxa weeye Meinungsumfrage. waa dhowr kelmadood oo la isku daray. Marka aad iyo jeer saad ogtihiin baa jarmalku dhowr kelmadood buu isku daraa. Marka tan oo kale waxaa la odhanayaa Meinungsumfrage. Meinungsumfrage waxa weeye fikrado la isku soo ururiyay. Waa collection of opinions. Fikrado la isku ururiyay weeye. Meinungs haddii aad rabto waxa weeye opinion, waa fikrado weeye. Umfrage waa collection, waa isku keenis weeye. Meinungsumfrage waxa weeye fikrado la isku soo ururiyay. Saddexna waxa weeye über na waxay Ingiriis u dhigantaa about, ku saabsan. Über. Number 4 waxa weeye Tiere, waa xayawaanka. Xayawaanka. Number 5 einige Fragen stellen, su'aalo yar weydiin. Inaad qofka weydiisid su'aalo yar. Einige waxay u dhigantaa Ingiriisiga a few. Fragen waa questions, a few questions. To ask someone a few questions. Inaad qof weydiisid dhowr su'aalood, su'aalo yar aad weydiisid. Einige Fragen stellen baa la odhanaya. Marka kelmaddan stellen keligeed waxa weeye dhigis weeye, ama Ingiriisiga waxay u dhigantaa put. inaad dhigto matalan miis dushii. Marka imika laakiin waxa weeye einige Fragen stellen waa su'aalo yar weydiin. To ask someone a question ama to ask someone a few questions. Okay, number 6 ja natürlich macnaheedu waxa weeye haa dabcan. Ja natürlich. Number 7 manchmal waxa weeye marmarka qaar. Manchmal, sometimes. Marmarka qaar. Number 8 in den Zoo waxa weeye beerta xayawaanka. Beerta xayawaanka. Number 9 ja ziemlich, haa aad inta badan. Marka la leeyahay ja ziemlich waxay noqonaysaa haa aad inta badan. Marka la leeyahay ja ziemlich oft waxay noqonaysaa haa inta badan. Haa aad inta badan. Macnaha aad iyo aad inta badan ayaan macnaha meeshaasi aan tagaa. Marka ziemlich Ingiriisiga waxa u dhigantaa quite often. Marka markaan israacino ja ziemlich oft waxay noqonaysaa haa aad inta badan. Aad iyo aad baan meeshaasi u tagaa inta badan macnaha. Ja ziemlich oft. Number 10 oft keligeed waxa weeye waa badanaa. Oft waxa weeye badanaa. Number 11 wissen waxa weeye garasho. Markaan leenahay ich weiß, wir wissen, sie wissen. Marka wissen waa kamid originalkeedii waxa weeye garashadii weeye. Number 12 interessieren waxa weeye xiisayn. Xiisayntii weeye. Number 13 waxa weeye wilde Tiere waxa weeye xayawaanka duurjoogta ah. Wilde Tiere, xayawaanka duurjoogta ah. Number 8
deshalb 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 waxa weeye sidaa darteed therefore sidaa darteed deshalb deshalb sidaa darteed. Number 9 fast fast inta badan weeye almost inta badan fast. jeden monatna waxa weeye bil kasta jeden monat bil kasta. Okay, einmal hal mar weeye, zweimal waa laba jeer, dreimal waa saddex jeer, einmal hal mar. 12 Lieblingstier Lieblingstier waxa weeye xayawaanka aad jeceshahay. Lieblings markaa Lieblings waxa u dhigantaa favorite aad jeceshahay. Number 13 der Löwe waa libaaxa. der Löwe waxa weeye libaaxa. Number 14 haddaynu soo qaadano number 14 waxa weeye angst waxa weeye cabsida ama inaad wax ka cabsatid. angst cabsida weeye. Number 15 waxa weeye Mäusen waa jiirka. Mäusen jiirka weeye. Number 15 Mäusen jiirka weeye. Number 17 Spinnen waa caarada. Spinnen waa caarada. Okay, halkan ayaynu ka bilaabi doonaa conversationkeennii ama wada sheekaysigeeniiba. Marka waxaan ku bilaabaynaa Entschuldigung iga raali noqo wir machen gerade waxaan sameynaynaa gerade imika eine Meinungsumfrage fikrado la soo ururiyey über Tiere oo ku saabsan xayawaanka. Darf ich Ihnen einige Fragen stellen? ku weydiin karaa markaa su'aalo waxoogaa ama su'aalo yar ma ku weydiin karaa. Entschuldigung iga raali noqo wir machen waxaan sameynaynaa gerade imika eine Meinungsumfrage fikrado macnaha la soo ururiyey über Tiere oo ku saabsan xayawaanka. Darf ich miyaan anigu Ihnen adiga einige Fragen stellen aan ku weydiin karaa su'aalo dhowr ah. Haddaan ku celiyo Entschuldigung wir machen gerade eine Meinungsumfrage über Tiere. Darf ich Ihnen einige Fragen stellen? Marka waxa weeye iga raali noqo wir machen gerade imika waxaanu sameynaynaa eine Meinungsumfrage fikrado macnaha la soo ururiyey über Tiere oo ku saabsan xayawaanka. Darf ich Ihnen einige Fragen stellen? ku weydiin karaa markaa su'aalo dhowr ah. Ja natürlich haa dabcan waad i weydiin kartaa macnaha. Ja natürlich haa dabcan. Su-aasha kale gehen Sie manchmal in den Zoo ma tagtaa marmarka qaarkood beerta xayawaanka. Gehen Sie ma tagtaa manchmal marmarka qaarkood in den Zoo beerta xayawaanka. Markaa jawaabtu waxay noqonaysaa ja ziemlich oft haa aad inta badan. meeshaas waan tagnaa macnaha ja ziemlich oft. Ziemlich kaligeed waxaa u dhigantaa aad ama ingiriisiga waxaa loo yaqaano quite. Marka quite often haddii la israaciyo waxa weeye inta badan weeye aad inta badan aynu meeshaasi tagnaa. Ja ziemlich oft haa aad inta badan meeshaas waan qabanaa. Wissen Sie ma garanaysaa ama wissen Sie ma garanaysaa bay noqonaysaa. Ich habe 2 Söhne waxaan leeyahay 2 wiil. Sie interessieren sich waxay xiiseeyaan iyaga laftoodu für wilde Tiere xayawaanka duurjoogta. Deshalb sidaa darteed gehen wir waxaanu tagnaa anagu fast inta badan jeden Monat bil walba einmal hal mar baan tagnaa in the zoo beerta xayawaanka. aan ku celiyo ja ziemlich oft haa aad inta badan. Wissen Sie ma garanaysaa ama ma ogtahayba
Ich habe 2 Söhne. In laba inan leeyahay. Sie interessieren sich oo ay xiiseeyaan iyagu für wilde Tiere. Markaasi xayawaanka duurjoogta ah. Deshalb sidaa darteed gehen wir fast jeden Monat. Waxaanu tagnaa inta badan bil kasta einmal in der Zoo. Hal mar baan tagnaa bil kastaba in der Zoo beerta xayawaanka. Ja, ziemlich oft. Wissen Sie, ich habe 2 Söhne. Sie interessieren sich für wilde Tiere. Deshalb gehen wir fast jeden Monat einmal in der Zoo. Okay, su-aasha kale waxay noqonaysaa haben Sie ein Lieblingstier? Haben Sie ein Lieblingstier? Ma leedahay xayawaan aad xiisaysid? Haben Sie ma leedahay ein Lieblingstier? Xayawaan aad xiisaysid? Okay, jawaabtu markaa waxay noqonaysaa ja, mein Lieblingstier. Xayawaankaan xiiseeyaa is Löwe. Waxa weeye libaaxa. Ja, mein Lieblingstier. Xayawaankaan xiiseeyaa is Löwe. Löwe. Waxa weeye libaaxa. Haben Sie keine Angst vor Löwen? Kama cabsiya kaama hayso soo maaha libaaxyada. Haben Sie keine Angst vor Löwen? Kama baqatid soo maaha libaaxyada. Haben Sie keine Angst? Cashirkeenu intaas ayuu noogu eegyahay. Sidaan horeba u sheegnay, waxaa ka heli doontaa casharadeennan kan iyo kuwii horeba page-ka aanu ku leenahay Facebook ee Somali German Union ee shaashada kaaga muuqda amaba YouTube-ka labadaba. Fadlan subscribe garee YouTube-ka markaa ka daawanaysid. Qof kasta oo YouTube-ka ka daawanaya waa inuu subscribe gareeyo haddii uu awoodo amaba uu ka helo videoga laftiisa. Intaa kadibna waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo dhammaantiinba. Asxaabta groupka iyo asxaabta kale ee YouTube-ka dhammaantiinba waxaan idin leenahay viel Spaß dhammaantiinba. waxaan idinkaga tegaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. sidaas iyo amaano Allah.